shalay maanta xubno u badan xukuumadda federaalka ah shaqaalaha dawladda hoose ee xamar iyo askar ayaa iska diiwaangeliyay doorashada lagu muransan yahay ee Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Xamse oo og in degmada Aadan Yabaal uu dagaal xooggan ka socdo oo ay ciidanka qaranka dhimashay dhaawac qabaan oo ay qaarkoodna go'doon yihiin oo magaalada Aadan Yabaal gacanta dawladda ay ka baxday ayaa dhinaca kale saaki iska aaday diiwaangelin la sheegay inuu Muqdisho ka wado guddiga la diidan yahay ee doorashooyinka qaranka. doorashadan lagu muransan yahay ee la diidan yahay wanaageeda iyo waxdheefkeeda waxaa garanayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kaliya. xubnaha u diiwaangashan xisbiga la yiraahdo UPD ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh ayaa shalay maanta isku diiwaangelinayay doorashada lagu muransan yahay. sidoo kale shaqaalaha dawladda hoose ayaa ka mid ahaa dadka lagu amray inay isdiiwaangeliyaan ee lagu arkay sawirada shalay maanta iyadoo la ogeen halka uu degan yahay qofka. xisbiga qura ee hadda isdiiwaangeliyay waa xisbiga Xasan Sheekh Maxamuud ee UPD, laakiin maanta isdiiwaangelin hal dhinaca iyo in dalka la difaaco yaa muhiimsan. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddiga uu dhistay ee doorashooyinka waa og yihiin inay diideen doorashadan iyo isdiiwaangelintaba. xisbiyada iyo dhinacyada ay hogaamiyaan Farmaajo, Sheekh Shariif, Siciid Cabdullaahi Deni iyo Xasan Cali Khayre. haddana sidaas ay tahay Xasan Sheekh waxa uu arkaa doorashadan halka dhinaca mid uu kursiga ku heli karo markii saddexaad ama inuu buuqeeda isqabqabsigeeda u dhali karo inuu dhowr sano dheeraad ah sii joogo kursiga. ra'iisul wasaaraha safka u jira xamar iyadoo la qabsanaya degmada Aadan Yabaal ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud weli ka sugayaa natiijo maamul daafaca dal iyo badbaado nabad ah. Xamse sida muuqata wuxuu go'aansaday inuu fuliyo wax walba uu rabo Xasan Sheekh Maxamuud, taasina waxa ay lumisay mas'uuliyadiisa guud. qaadashada go'aanka noocaas ah markii hoos loo daadego Xamse waxa uu uma tiri karo Xasan Sheekh Maxamuud dalkana sidoo kale. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa mar badan lagu baaqay inuu dhiso xukuumad dagaal iyo inuu raadiyo midnimo umadeeda, balse weli taasi ma aqbalin madaxweynaha. maanta xaaladda way soo adkaatay. Aadan Yabaal waa la qabsaday, abuureyna waa laga soo baxay kadib dagaalo socday muddo asbuuca. wuxuu ku filan yahay Xamse inay isagii xukuumaddiisa ay diiwaangeliyaan doorasho aan xitaa ayna ka iibin karin dadka Soomaaliyeed. sidaa awgeed waxaa la soo gaaray marxaladii la ogaan lahaa mid Xasan Sheekh Maxamuud u muhiimsan difaaca dalka iyo doorashada lagu muransan yahay. haddaba sidee u aragtaa adiga?